gabadh qaawan oo jirkeedii banaysay oo waxa weeyaan markaasi dambiga heesta iyadoo markii hore ku jirtay mid labaad ku jirtay laakiin waxa igu maqaala inay gabadhaasi ahayn ba gabadh dadkeena marka ay tahay gabadh Ethiopian ama Xabashiyada ay arrin dhaqan xumi ah oo ku saabsan yaana waxa weeye heestaasi maaratay hadiye jiraale baraha bulshada la soo dhigay maalmahan dambe oo dhan sideedaba heesuhu waa waxyaalaha sharcigeenu xarimay markooda hore ayaanay shay banaan aanay ahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inoo diiday ومن الناس من يشتري له ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله dadka waxa kamid mid iibsanaya marka hadalka kiisa dheeldheelka ah oo culimadu ay ku fasireen qinaaga nabigeena alayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay aakhir zamaankiina soo bixi doonaan qowm yastaxiluna al-hirra wal-harira wal-ma'azif qowm zinada iyo xariirta iyo miisikada iyo heesaha banaysan doona markeeda hore ay heesuhiin shay xaraam iyo marka hore dambi ah ayaa arintan dambe ee cusub ee maanta soo korodhana ay ku darsatay dhaqan xumo kale waxa marka ugu baaqaya isaga iyo qeyrkiiba in Ilaahay ka baqaan subhanahu wa ta'ala inaanay adduunyada ku dhamaysan umrigooda fiican iyo dhalinyarnimadooda Ilaahay uu siiyay inaanay ku dhamaysan cadho Ilaahay adduunka inaanu ka tagin isagoo Ilaahay u cadhaysan yahay waxa shaki ku jirin inuu maalmaha kamid adduunka ka tagayo sidoo maalmaha kamid uu yimid dad badan oo wanaagsan oo ka tagay baa jira markay arkeen dhibteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu khayrka waafajiyo marka waxaan Ilaahay uga bariyaa Ilaahay inuu khayrka waafajiyo iyagana waxaan u nasteexaynaya inay arrintaas ka dayaan arrintaas waa arrin dhaqan xumi ah waxa weeyaan gabadha jirkeedii soo bandhigtay in xishoonayn in dad badan ku daydaan baa laga yaabaa fasaad badan dalka inay u soo jiido ayaa laga yaabaa oo dhalinyaro badan ay ku lumaan ama ay ku halaabaan marka Ilaahay waxaan uga barayno iyadana khayrka waafajiyo hanuuniyo xaq tuso waxaan ugu nasteexaynaya waxa inaanay mar dambe u noqon arrinta noocaasina in bulshada laga joojiyo oo xukuumadda iyo shacabka cidii ka joojin karaysa ay ka joojiso qablaheeni muslimiinta ay heesaha qaadayay aan leenahay waa xaraan iskaga taga inaynu soo jilaabno ama aynu keeno qaaran islaam ba ahayn waa musiibo kale oo ka sii weyntii hore marka shariicada aynu haysanay wanaagsan lama haysato dhaqanka fiican aynu ku baaqanana in lama aaminsana marka waa arrin ku ah foolxumo sharcigeeni dalkeeni iyo dadnimadeeniba marka waxaan ugu baaqayaa dadka aad ka dhawaajisay maamulkooda iyo waxa weeyaan dadka hormoodka u aba in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqaan bulshadooda inaanay u horseedin dhaqan xumi bulshadooda inaanay u horseedin fasaad akhlaaqeed in ay bulshada ku soo biiriyaan wanaag iyo horumar mooyaane inaanay bulshada ku soo biirin dib u dhac iyo fasaad akhlaaqeed hawlaha noocaas inaanay dib ugu noqon waxa laga yaabaa wax badan inaanay arag baama ay ka qarsoon yihiin baa laga yaabaa ma islihi dhaqan xumo ay aragtay wasaaraddu ayay ka gaabinaysaa ismalihi waan xasuusinaynaa waxaan leenahay si gaar ah waynu ugu sheegnaa wixii kolba aynu aragno in wasiirka loo tagay wasaaraddiisu way balaaran tahay agaasimahiisa iyo cidda shaqada kule in loo tago idinku laftiina wariyahan wixii dhaqan xumo aad aragtaan qoladiina meediyaha joogta inaad wasaaradda tagtaan oo tiraadaan waxa jira ee wasaaraddu baaqa ka soo saarto marka ayaa fiican anuna taas uma nimanka leeyahay oo wixii wadankeena dhaqan xumi iyo islaamkeena iyo diinteena ku ah dhamaan dawlad iyo shicibba inaan u wada heelano dhinac uga soo wada jeedno ayaan ugu baaqayaa ma wasaaradda haata ma wasaaradda kala haata ma shacabka